Boss mid ka mid ah astaamaha maalqabeennimo iyo sidoo kale baraandiga ugu weyn. Haddaba sidoo baraandiga Boss uga yimaado mid u shaqeeya Hitler iyo ciidamada Naaziga sidoo kalena uu ku noqday mid ka mid ah baraandiyada ugu sumcadda sare ee casrigan aan joogno. Iyo mideeda kale waa maxay sababta u geysay in Hugo Boss ay u adeegto mid ka mid ah nidaamyadii ugu halista badnaa taariikhda casriga. muuqaalkeenan maanta waxaan isku leeyaynaa sheekada waalida Hugo Boss iyo sida uu kambanigan uga mid noqday xulafadii Hitler sidoo kalena uu isugu bedelay mid ka mid ah fashion baraandiga ugu weyn caalamka oo dhan. haddaba ninkan ay taariikhdu u taqaano Hugo Boss ayaa aslaantiisa lagu magacaabo Hugo Ferdinand Boss. ninkan uu aslaantiisa ku dhashay wadanka Jarmalka gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Mexican. taariikhdu markaa July 1885 waxay ahaatay Hugo qoyskiisana ayaa qoys kaga nool dabaqada dhexe ayadoona aabiga oo lagu magacaabay Henrik waa mid lahaa dukaan yar oo lagu soo saarayay dharka kaasoo ay ku lahaayeen magaaladoodii. dhanka kale Hugo ayaa yaraanka ugu yar xaafadda ayadoona ay ka weynaayeen afar kale kuwaasoo markii dambe saddex ka mid ay dhalaanimadooda ku dhinteen halka uu Hugo nasiib u yeeshay oo kaliya inuu la soo barbaaray walaashiis ka weyn. haddaba waqtigii yaraantiisa Hugo ayaa isla markiiba bilaabay inuu shaqo galo sidoo kalena uu dhex galo ganacsiga qoyska ee dharka asagoona halkii ku bartay soo saaridii iyo sidoo kale iibintii dharka. waxay ahaatay markii la gaaray 1903 Hugo ayaa loo diray tababar ciidan midanoona waqtigaas qasab ku ay da'yarta Jarmalka in la siiyo tababar ciidan oo ah 2 sano halkii uu Hugo ku soo qaatay 2 sano oo tababar ciidan ah. intaas kadib markii uu soo laabtay Hugo ayaa mid halkii shaqadiisii ka sii watay asagoona isla markaas hore ka bilaabay sidii uu ganacsiga familka uga dhalan lahaa faa'iido badan. sida yaataba waqti dheer ma aysan ka soo wareegin ilaa uu ka qarxay dagaalkii koowaad ee dunida kaasoona sababay inuu dhulka gala ganacsiga qoyska Hugo iyo sidoo kale dhammaan ganacsiyadii kaleba. dhanka kale Hugo oo ahaa mid tababar buuxda soo qaatay ayaa isla markiiba laga wacay in dagaalkii uu ka qayb qaato maadaama uu ahaa mid loo diyaariyay dagaalkan. haddaba 4 sano oo sidii dagaal ugu jiray Hugo ayaa nasiib wanaag soo laabtay asagoona nasiib xumo u soo laabtay dukaankiisii oo dhulka galay sida si lamid ah sidii ganacsiyo badan oo Jarmal ahba ku dhacday. sida yaataba Hugo ayaa isla markiiba guda galay asaasinta dukaankiisa dharka ee khaaska ah maadaama uu xirfad buuxda u lahaana waqti badan ma aysan ka qaadanin asagoona isla markiiba dukaankii u bedelay warshad dhammaystiran taasoona soo saarta dharka noocyadiisa kala duwan ha ahaadaan jaakado fanaanado surwaale iyo kuwa kale oo badan midanuuna Hugo iyo dukaankiisaba ka dhigtay in isla markiiba magaaladiisa laga aqoonsado. waxay ahaataba wax walba sidii loogu talagalay markay u socdeen waxaa dhacday 1923 uu Jarmalku galay xaalad dhaqaale darro xaaladaasuna keenay dagaalkii dhinacyada badnaa kaga furmay awgeed midanuuna kalifteen dhaqaale darradaas ay sidoo kale dhulka gelisay ganacsatadii yaryara sida Hugo oo kale ayadoona ay aad u yaraadeen dadkii wax gadanayay. sidoo kale sanado yar kadib waxaa sii laba jibaarantay dhibaatadii ayadoona ay dhacday dhaqaale darradii waqtigaas ugu weyneed ee The Great Depression. dhaqaale darradaasoo waqtigaas kaliftay in xitaa faamiliyada qaar ay waayaan waxay cunaan iska badaa shaqo iyo lacage. dhanka kale intii lagu guda jiray waxaasoo dhan Hugo ayaa isla markiiba guda galay xalkii dhibaatadan asagoona bilaabay raadintii waddadii uu ku badbaadin lahaa ganacsigiisan. haddaba isla waqtigaas Hugo ayaa bilaabay dhexgalidii ciidamadii Naaziyiinta asagoona qorshihiisu ahaa sidii uu ugu dhawaan lahaa dowladdii waqtigaas uu xukunku hayay ninkii lagu magacaabay Hitler si uu isla markaas halkaas uga helo kontraktiyo ka dhan ah dowladdii ayadoona ugu dambeyntii fikraddaas siday ahayd uga shaqaysay. haddaba Hugo ayaa isla markiiba helay fursad ah inuu soo saar ka noqdo uniformka ciidankan asagoona isla markiiba helay dalabyo isdaba jooga. waxay ahaataba dhanka kale maadaama Hugo waqtigaas mid ku jiray xaalad dhaqaale darro sidoo kalena uu saameeyay dhaqaale darradii ka dhacday waddanka haddana waxa uu diyaar u ahaa inuu mar kale wax walba dib loo bilaabo maadaama ay hadda fursad aad u weyn albaabku soo garaacday. haddaba Hugo waxa uu galay diyaargarow adag iyo inuu qalabkiisa isku hagaajisto asagoona sidoo kale tiim kale oo la shaqeeya soo shaqageliyay si ay isla markaas ugu fududaato diyaarinta uniformka intaas leeg ee uu diyaarinayay ciidamada Naaziyiinta. midanuuna isla muddo koobanba Hugo iyo ganacsigiisii ka dhigtay inay hawada galaan haddaba muddo dheerba ma aysan ka soo wareegin ayadoona Hugo iyo ganacsigiisiiba ay hawada galeen asagoona Hugo ahaa mid marba mar ka sii dambaysay uu Hitler awood sii yeesho uu asna ahaa mid dhankiisa awood ka sii yeelanayay. midanuuna xitaa la sheegay in waayidii dambe markuu Jarmalku maxaabiis ka soo qabsado wadannada kale ay maxaabiistaas ahaayeen qaarkood kuwa u shaqeeyay sidoo kalena addoomo u noqday Hugo iyo sidoo kale warshadiisan asagoona maxaabiistaas ugu hanjabi jiray in wax xabasha haddii ay sameeyaan uu ku celin doono meelaha xabsiyada iyo sidoo kale meelaha ay ku xariisnaayeen. dhanka kale ka tirsanaantan Hugo ka tirsan yahay qolyaha Naaziyiinta ayaa noqotay mid hadallo badan dhalisa asagoona sida uu asagu aaminsanaa ay ahayd in qolyahan uu uga tirsan yahay uu kaliya inuu dantiisa ku gaadho maadaama markii hore inta uusan ayagu ku biirin ay warshadiisa ahayd mid dhulka taalay halka dhanka kale la sheegay in ka tirsanaanshaha uu ka tirsan yahay qolyahan Hugo ahaa mid ku qanacsan sidoo kalena daacad u ah. waxay ahaataba ugu dambeyntii waxaasoo dhan waa la iskuga daba yimaaday ayadoona markii uu dagaalkii dhammaaday sidoo kalena la jabiyey ciidamadii Naaziyiinta iyo xukunkoodiiba ay bilaabatay in la xisaabiyo Hugo iyo sidoo kale warshadiisanba ayadoona baaritaankaas kadib lagu helay in Hugo uu ahaa shaqaale buuxda ciidankan
sidoo kalena uu dhaqaalihiisa inta ugu badan u ka samayn jiray ciidamada Naaziyiinta ayadoona cadeymahaas lagu helay awgeed warshadiisii iyo sidoo kale businesskiisii albaabada la iskugu dhuftay intaasoo kaliya looguma keenin asagoona sidoo kale qalinkeeda laga mariyay inuu dib u laba asaasay ganacsi kale haddaba ugu dambeyntii sanado yarun kadib dhacdadaas Hugo Boss ayaa halkii ku dhintay taariikhdu markay 1948 haddaba waxaad isweydiinaysaa haddii Hugo iyo ganacsigiisiba ay halkii ku dhinteen waa maxay baraandhigan ilaa maanta jiray lagu magacaabo Hugo Boss ee weliba balaayiinta doolar ku fadhiya sidoo kalena dunida haysta siday wax u jiraan haddaba inta aynan ugu gudin qaybta xigta fadlan haddaan hore nagu soo biirin hadda nagu soo biiro channelka subscribe saaro si aysan muuqaalada xiisaha badan aan soo wadnaa aysan ku dhaafin sidoo kale ay laawin inaad muuqaalka like saarato aan ugu gudgalno muuqaalkeena marka uu Hugo Boss dhintay waxa dhacday in dhaxalkiisii uu ku wareegay wiilkii uu awoowaha u ee lagu magacaabay Eugene kaasoo bilaabay in kambanigii uu dib isugu keeno maadaama uusan asagu wax shaqo ku lahayn wixii hore asaguna Eugene gudaha galay in waqtigaas uu asna soo saaray uniformka booliiska iyo sidoo kale taraafikada waqtigaas intaas kadib markii la gaaray 1950kii kambanigii ayaa ahaa mid helay dalabyaha inuu soo saaro suudadka midanoona kalifteen kambanigii ballaarin lagu sameeyo sidoo kalena la sii labanlaaba shaqaalihiisii midanoona kambanigii ka dhigtay inay sii weynaayaan shaqaalahoodii sanadadii xigay ayadoona 1953 la arkay in kambanigii Hugo Boss suuqyada soo geliyay suudadkoodii ugu horeeyay ayadoona isla sanadadii xigay uu kambanigii gebi ahaanba u wareegay soo saaridii suudad tayo sare leh kuwaasoo si aan caadi ahayn looga shaqeeyay ayadoona midan ay uga dan lahaayeen in kambanigii sumcadiisii loo soo celiyo sidoo kalena dadka la iloosiyay wixii hore uu asaasay Hugo sameeyay si kambaniga uu dhulka ugu sii hayo waxay haataba asaasaan cusub ee Eugene ayaan haba yaraatay waxba ka garanin kambanigii asaguna muddo yarba kambanigii ka soo saaray mugdi aad u weyn sidoo kalena uu soo saaray iftiin haddaba markii la gaaray 1967 Eugene ayaa go'aansaday inuu iskaga fadhiisto maamulkii kambanigan asaguna kambaniga uga tagay labadiisii wiil haddaba labadan wiil ayaa iyaguna bilaabay in kambaniga ay u bedelaan kambani caalamiya ayagoona labadan walaalo xooga saaray sidii ay u soo saar lahaayeen suudad tayo sare leh kuwaasoo dharka ay ka tulayaan ay ka keenayaan wadamo kale sida wadanka Talyaaniga oo aad caan uga ah soo saaridda suudadka tayada sare leh sidoo kale 1975 waxay soo shaqo galiyeen designerkan kaasoo lagu magacaabay Warner Baldesserini ninkan oo noqday madaxa qaybta designiska ee shirkaddan asagoona ninkan design kala duwan ku soo kordhiyay shirkaddii haddaba wax walba sidii loogu talagalay ay ugu socdeen walaalihii iyo sidoo kale businesskoodii Hugo Boss ayadoona isla markaas produktiyadooda ay si wanaagsan ugu gedmayeen guud ahaan Jarmalka oo dhan laakiin dhanka kale walaalihii ayaa markan go'aansaday in la gaadho waqtigii uu kambanigooda noqon lahaa international sidoo kalena kambaniga lagu fidan lahaa wadamo kale oo badan waxay haataba laakiin arrintan ayaa u baahneyd marka hore in kambanigooda la aqoonsado sidoo kalena ay indho badan soo jiitaan ayagoona markan hore ka bilaabeen inay awoodooda oo dhan isugu geeyaan suuqgeynta iyo sidii ay indhaha dadka u bari lahaayeen kambanigoodan ayagoona sidoo kale bilaabay inay heshiis la gaadhaan qaybo ka mid ah tiimka ku tartama baabuurta iyo sidoo kale qaybo ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansanaa waqtigaas midanoona u saasheen 1976 ay suudadkoodii ugu horeeyaan ku iibiyaan Mareykanka dhanka kale markii ay walaalihii arkeen sida degdeg ah uu kambanigoodan hawada u sii galayo waxay sidoo kale go'aansadeen in productyadoodii markii hore ahaa oo kaliya suudadka ay sii kordhiyaan sidoo kalena ay keenaan productyo kale ayagoona 1984 bilaabay inay soo kordhiyaan qayb cadarra ah cadarradaasoo markii dambe noqday meesha ugu weyn ee faa'iidada ay ka keenaan haddaba isla sanadun gudaheed Boss ayaa noqday baraandhiga ugu weyn guud ahaan Jarmalka oo dhan intaas kadib sidoo kale 1989 walaalihii ayaa sidoo kale soo kordhiyay muraayadaha indhaha waxay haataba isla sanadkaas walaalihii ayaa go'aansaday inay kambanigoodii ka iibiyaan gruub kale oo Japanese ah kaasoo ay farta ka saareen badi kambanigoodii haddaba go'aankan ay walaalihii qaateen ee ahaa inay iibiyaan kambanigoodan ayaa la dhihi karaa inay ku saxnaayeen maadaama isla sanadadii ay iibiyeen uu kambanigii bilaabay inuu dhulka sii galo heer ay qasab noqotay in asaasayaasha cusub ay tallaabo degdeg ah qaadaan sidoo kalena ay soo kordhiyaan produktyo kale oo loogu baranin Hugo Boss si ay isla markaas kambaniga ugu badbaadiyaan waxay haataba waxaasoo dhan waxba aysan ka bedelin kambanigii ilaa ugu dambeyntii ninkan lagu magacaabo Baldesserini uu ka noqday CEO-ga cusub ee kambanigan ninkan oo dadaal dheer kadib kambanigii suuqa dib ugu soo celiyay asagoona ninkan xooga saaray modelinka iyo sidoo kale inuu xaysiimo uga dhigo qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan midanoona keentay ilaa maanta in Hugo Boss uu ka mid yahay mid ka mid ah baraandhiyada fashion ee ugu weyn caalamka oo dhan asagoona baraandhigan maanta ka howlgalay in ka badan 90 waddan oo daafaha dunida ku kala yaala sidoo kalena ay waji u yihiin qaar ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan dunida sida Khaby Lame Chris Hemsworth iyo qaar kale oo badan sida haataba dhanka kale Hugo Boss ayaa ilaa maanta la kulmay dhaleecadooyin badan kuwaasoo isla markaas la xiriira wixii hore uu kambaniga sameeyay walow raaligelin buuxda ay ka bixiyeen wixii hore uu sameeyay asaasoodii Hugo ayagoona sidoo kale qaladaadkaas si ay u saxaan bilaabeen inay bixiyaan macaawimo badan kuwaasoo ay isku dayayaan inay wax badan ku saxaan
haddaba maxay kula tahay sheekada kambanigan